warshada dharka ee Balcad oo tan iyo burburkii Soomaaliya aan shaqaynin ayaa haatan loo raadinayaa maalgelin lagu sameeyo si ay mar kale u shaqo bilowdo. warshadan ayaa waxaa dhex yaala dhammaan mishiinadii ay lahayd oo laga badbaadiyay burburkii dalka ka dhacay. wariyana Xuseen Xasan Dhaqane ayaa booqday warbixintan ayuuna nooga soo diray. warshada dharka ee Somali Takis waa warshada kaliya ay ka badqabta burburkii ku dhacay warshadihii uu dalku lahaa. shaqada warshada ayaa si rasmi ah waxay u bilaabmatay sanadkii 1968. warshada ayaa bilowgeedii hore waxa lahaa ganacsato isugu jirto Soomaali iyo Jarmal, waxaana qarameysay dawladii kacaanka sida ay u sheegeen VOA qaar ka mid ah howlwadeenadii warshada gaar ahaan kuwa xilligan gacanta ku haya. Tahliil Axmed ayaalna waa gudoomiyaha guddiga maamulka iyo nabadgelyada warshada. waxa uu sharaxayaa shaqada warshadii dharka ee Balcad iyo halkii maalin inta ay soo saari jirtay. waxay wax soo saarkeedu u ahaa suuf bay ay soo saari jirtay. suufkaas oo ay dhar ka dhigi jirtay, dharkaasoo mutqaana ay ku filaa ciidamada qalabka sida ardayda iyo mutqaan iskuulaadkoo dhan guulwadayaasha oo ciidamada ka mid ahaa. aduu wixii uniform qaata oo waddanka dhexdiisa ah iyada dharka u soo saari jirtay. maalintii ugu yaraan waxay soo saaraysay 70 kun oo yaardi bay mutqaana soo saaraysay. 26 maalmood ay shaqaynaysay bishii. shaqaaluhu 8 saacada waxaa soo geli jiray shifti 3 shift ay shaqaynaysay oo albaabadeeda lama xiri jirin. waa shaqada mutqaana fiican bay qabanaysay oo tacab soo saarkeeda mutqaana uu saas u ahaa. gudaha warshada ayaa waxaa dhex yaala dhammaan qalabkii ay warshadu ku shaqaynaysay sida makiinadihii dharka iyo mashiinadii dabka, walow warshadu aan sanado badan helin wax dayactir ah. warshadii nasiib wanaag shaqaalaheedii yaqiinay dad ka mid ah ayaa warshadii badbaadiyay, mana burburin. warshadii qayb ka mid ah boqolkiiba boqol ma shaqaynayso, laakiin qayb aan wax ka shaqaynayna ma jirto. Soomaaliya waxa ay lahayd warshado badan, kuwa ay dawladdu maamusho iyo kuwa gaar loo leeyahay. dagaaladii waddanka ka dhacayna waxay la tageen dhammaan hantidii dadka ka dhaxaysay oo ay warshaduhuna qayb ka ahaayeen. Xuseen Xasan Dhaqane, qubanaha VOA, Balcad.